Waxaan u wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadda Show. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalada qaraar ee ku sii faafaya gobolka Canfarta iyo deegaanada kale ee ka tirsan Itoobiya. Ishabaynta iyo ciidamada ay diyaarinayaan dhinacyada dagaalamaya wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa. Maxay tahay sababta Israa'iil iminka ay u danaynayso inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya dowladaha ku yaala qaaradda Afrika? Xog cusub oo la helay wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Afghanistan oo gacanta ku dhigay magaalooyin hore ay gacanta uga hayeen kooxda Taliban. Macluumaadyadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa. ku soo dhawow mar kale falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee waxaan ku hormari doonaa Itoobiya. Xaaladda dagaalada Itoobiya ka soconaya waxay u muuqanayaan inay sii yeelanayaan wajiyo cusub, waxaana dagaalada ay geysanayaan khasaare soo gaaraya dadka rayidka ah. In ka badan 20 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu warramayaa inay geeriyoodeen 10,000 kun oo kalena ay barakaceen sabab la xiriirta dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo xoogagga dowladda taabacsan ee ka soconaya gobolka Canfarta ee Itoobiya oo diris la ah gobolka Tigray marka la eego waqooyi bari dalkaasi Itoobiya. Dagaalka ka soconaya gobolka Tigray wuxuu ku sii fidayaa gobolkaasi Canfarta, dagaalkaas oo dhaliyay in 10,000 qof ay dhintaan 8 bilood ee ugu dambeysay kadib markii dagaalaha halkaas ay ku soo laalaabteen. Ciidamada ammaanka ee TPLF waxay u muuqanayaan dhankooda inay doonayaan inay isku ballaariyaan deegaanada gobolka, waxaana iminka ahmiyadda koowaad ay siinayaan wadooyinka muhiimka ah ee ay ka heli karaan ugu yaraan dhaqaalo, halkaasoo ay maraan ganacsiga kala duwan ee isaga kala gudbaya Itoobiya iyo wadamada deriska la ah. Dowladda Eritrea marka la eegana wax walwala kama qabta dagaalada iminka halkaasi ka soconaya, sababtoo ah ma jirto in TPLF ay u jihaysata dhanka xuduudda ay wadaagaan dowladaha Suudaan, Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya. Inkastoo ciidanka difaaca ee dowladda Eritrea heegan ay ku jiraan, haddana ma jirta baa la leeyahay baqdin xoogan. Sidaasi si lamida dowladda Djibouti ayaa sheegtay inaysan jirin wax walwala oo ay ka qabaan in kooxda TPLF dagaalka ay kula jirta Itoobiya ku faafay deegaano Djibouti xuduudeeda ka tirsan. Taasi beddelkeeda kooxda waxay sheegatay inay qabsatay wadooyin muhiim ah oo xiriiriya Djibouti iyo Itoobiya, waxaana la sheegaa halkaas inay tahay 90% goobta uu maro ganacsiga labada dowladood u dhexeeya, maadaama Itoobiya aysan dekad lahayn oo ay adeegsatay dekadaha ku yaala gudaha dalkaasi Djibouti. Ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu ku guuleystay sanadkii 2019 abaalmarinta Nobel Peace Prize, laakiin iminka waxay u muuqanaysaa in abaalmarintaasi beddelkeedii dagaalo xoogan uu gacmaha la galay ra'iisul wasaaruhu. Xukuumadda Addis Ababa waxay tababaraysaa ama ay abaabulaysaa xoogag ka socda gobollo kala duwan si ay u taageeraan ciidankeeda oo ay uga hortagaan waxay ku sheegtay inay tahay daandaansiga jabhadda Tigray ee taageerada ka helaya wadamada argagixisada ay ku tilmaantay. Goobjoogayaal waxay sheegayaan in dad rayid ay ku dhaawacmeen, laakiin jabhadda difaaca xoreynta Tigray ayaa waxa ay beenisay inay bartilmaameedsadeen dad rayid ah. Afhayeen u hadlayna wuxuu bartiisa Twitterka ku sheegay in jabhadda aysan dagaal kula jirin dadka Canfarta iyo sidoo kale maleeshiyooyinkooda, laakiin ay la dagaalamayaan hogaamiyaasha Itoobiya. Ciidanka Itoobiya waxay sheegeen inay burburiyeen xoogagga TDF ee soo weeraray deegaankaas. Suuragal ma aan in si madax bannaan loo xaqiijiyo macluumaadka marka la eego isgaarsiinta oo go'an iyo madmadow warbaahinta oo ku saabsan waxa ka soconaya Tigray tan iyo markii uu qarxay dagaalkani bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. 10 gaari ay leedahay hay'adda cunnada adduunka oo sida gargaar kala duwan ayaa maalintii Axadda lagu weeraray sida la sheegay meel qiyaastii 100 kiiloomitir u jirta deegaanka Sameera caasimadda Canfarta, waxaana taasi ay keentay in hay'adda qaramada midoobay hakisa kolonyadeedii wadadaasi maraysay siday xaqiijisay wakaaladda wararka AFP. Dhaqdhaqaaqayaasha gobolka ayaa halkaasi waxay ka sheegayaan inay baahi daran ay ka jirto oo loo qabo gargaarka bini'aadanimo oo degdeg ah, iyada oo beeraleyda iyo dadka kaleba lagu qasbay in ay qaxaan iyada oo ay sii kordhayaan dagaaladu. Gobolka Canfarta wuxuu ka mid yahay 9 dowlad goboleed ee Itoobiya, caasimadiisuna waa Sameera. 95% dadka gobolkaasi dega waa muslimiin. Tirada guudna waa 1.5 milyan oo qof, sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay 2005. Kolonyada gargaarka ayaa waxaa la sheegay inay doonayaan inay gaaraan 100,000 kun oo qof oo khatar ugu jira inay macluul ay ugu geeriyoodaan gobolka Tigray. Qaramada midoobay walaac ayay ka muujinaysaa cunto la'aanta ka jirta gobolkaasi Tigray tan iyo markii dagaalada ay bilowdeen, waxaana ay sheegtay in ka badan 5 milyan oo qof ay si degdeg ah ugu baahan yihiin cunno iyo gargaar. Qiyaastii 350 kun oo qof ayaa qarka u saaran xaalad macluul ah, taasoo dowladda Itoobiya ay beenisay. Waxaa xusid mudan in Tigray ay soo martay macluul intii u dhaxaysay 1983 ilaa 85 oo ay ku dhinteen in ka badan 1 milyan oo qof, gudahana ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo kale.
dagaalkan ayaa bilowday bisha Noofembar 2020 waxa u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo jabhadda TPLF kadib weerar jabhaddaasi ay ku qaaday saldhig ay lahayeen ciidamada Itoobiya. Bishii Juun dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday xabajoojin 8 bilood ah, balse dagaalyahanada Tigreega ayaa wacad ku maray inay halkaasi ka saari doonaan waxay ugu yeereen cadowgooda gobolka. Itoobiyana waxay sheegtay in dowlado shisheeye door weyn ay ku leeyihiin dagaalada halkaasi ka dhacaya, waxaanay ku tilmaamtay dowladaha argagixisa oo taageeraya TPLF oo ka horjeeda horumarka Itoobiya ka jira sida lagu sheegay warbixinta. Macluumaadkaasi iyo waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku eegeynaa, balse markaan aan eegno maxay tahay sababta Israa'iil iminka u doonaysa inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya wadamada qaaradda Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in Israa'iil ay dib ugu biirayso midowga Afrika iyada oo noqonaysa waddan korjooga ah. Tallaabadan ayaa sida uu qoray wargeys ka soo baxay Israa'iil waxay timid ku dhawaad 20 sano kadib markii Israa'iil ay weysay xubinnimada ururkan wixii ka dambeeyay markii la bedelay ama laga bedelay magacan oo laga dhigay midowga Afrika. waxaa lagu waramayaa in safiirka u jooga Israa'iil magaalada Addis Ababa uu waraaqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed si uu xubin kormeera ugu noqdo ururka. kulankaasna waxa uu ka dhacay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. warbaahinta Israa'iil ayaa soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid waxaana uu sheegay maanta waxay dabaaldeg u tahay xiriirka Israa'iil iyo Afrika. wuxuu intaasi uu ku daray horumarkani dhinaca diblomaasiyadda waa natiijada dadaalka wasaaradda arrimaha dibadda laanteeda Afrika iyo safaaradaha Israa'iil ee qaaradda Afrika. waxaa sidoo kale uu yidhi tani waxa ay gebi ahaanba ay saxaysaa qaladaadkii jiray ku dhawaad 20 sano, waana qayb muhiim ah oo ay doonayso inay ku xoojiso xiriirka dhinaca dibadda Israa'iil. Yair Lapid waxa uu sheegay in Israa'iil ay hadda xiriir fiican ay la leedahay 46 dowladood oo ka tirsan qaaradda Afrika. maamulka Falastiiniyiinta ayaa horeyba door noocan oo kale ugu lahaa ururka midowga Afrika. haddaba maxay tahay ujeedada ay Israa'iil ka leedahay ku biiritaanka midowga Afrika? Israa'iil waxay isku dayaysaa inay adkayso cilaaqaadka kala dhexeeya 55 dowladood ee midowga Afrika ka tirsan sida ay tabinayso warbaahinta dowladda Israa'iil. arrimaha kale ee sababta oo ku biirista midowga Afrika waxaa ka mid ah in Israa'iil ay doonayso sidii ay gebi ahaanba u badin lahayd wadamada ugu codeeya arrimaha ay ka doonayso hay'adaha caalamiga sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kaloo Israa'iil ay doonaysaa inay kala shaqeyso arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada, xakamaynta COVID-19 iyo kobcinta ganacsiga beeraha. qaar ka mid a bogagga internetka wax ku qoray Israa'iil ayaa shaaciyay in dowladda ay dalkaasi ay dhowaan xiriir diblomaasiyadeed ay dib ula bilowday dalalka Chad iyo sidoo kale Guinea oo midowga Afrika ka tirsan kuwaas oo hore xiriirka ay ugu jirtay. sanadkii la soo dhaafayna waxay Israa'iil xiriir ay la saxiixatay Suudaan iyo Morocco. bishii May ee la soo dhaafay madaxa midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa cambaareeyay duqeymihii Israa'iil ay ka fulisay marinka Gaza iyo weeraradii ciidamada Israa'iil ay ka geysteen masjidka Al-Aqsa. wuxuu xilligaasi uu sheegay in militariga Israa'iil ay sameynayaan ficilo guracan oo ka dhana shuruucda caalamiga ah. Muuse Faki Maxamed sidoo kale wuxuu shir midowga Afrika ka dhacay 2020 uu ku sheegay inuu ka soo horjeedo sida uu maamulka madaxweyne Trump u wajahay qorshaha nabadeynta bariga dhexe. sacab badan oo ay u sameeyeen ka qaybgalayaashii shirkana wuxuu ku kasbaday markii uu yiri Trump ficiladiisa waxay hagardaameynayaan xuquuqda dadka Falastiiniyiinta. qaybaha kale haddii aan eegnana ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen magaalooyin ay xoog ay ku haysteen kooxda Taliban kuwaas oo muhiim u ah sida la sheegay kuna yaala dhanka galbeed ee gobolka Xiraat ee dalkaasi Afghanistan. warbaahinta dowladda ayaana sidaasi baahisay. gobolka Xiraat wuxuu xuduud u leeyahay dowladda Iiraan waxaana ay ciidamada ammaanka ay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen magaalo ku taala dhanka bari ee gobolka Kunar oo sidoo kale xuduud la leh dalkaasi Pakistan. muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi waxaa ku sugnaa kooxda Taliban oo u muuqanaysa inay doonayso inay gacanta ku dhigto gobolada dhaca dhanka xuduudaha. dowladaha Shiinaha, Pakistan iyo sidoo kale Iiraanna waxay ka mid ahaayeen kuwa walaaca xoogan ka muujinayay saameynta kooxda Taliban ee gobolka. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadisho waa naga intaa macluumaadkan kan xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo.